السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaheysa ujeedin maanta waxaan noo wadaa qolka jiifka qolka ilmaha upstairs arbeen aan nadiifiyo jadwalka arbeen aad kala hadla maanta soo dhawaada fadlan hadaa cusub tahay waxaan ka codsanaa mataqaanaa youtube shuruucdiisa arbeen aan buuxino subscribe like share ka dhinaciina waay okay insha Allah durbiino videoga dhameystiro way caawinaya okay sa ujeedin upstairs aan nadiifinayaa waxaan rabaa inaan kaaga hadla maanta videogan waxa weeyaan hooyo fadhiga ka kac hooyo kaliya maahan caruurta ku jiraan waxyaalo badan aan ka hadlaynaa insha Allah durbiino waxaan rabaa hopefully inuu ku caawiyo ama uu ku siiyo fikrado oo adiga reerkaaga inaad dib u fiirisid insha Allah okay jadwal ku dejisan yahay hadduu isku dejisnayn it's okay because videogan rabaa inaan kuu sharaxo step by step waxaad samayn kartid ama meesha ka bilaabi kartid haddaad tahay hooyo ilmo yar haysato ilmo waaweyn haysato ilmo kala da-aad duwan haysato gurigaaga uu isdhex yaalo oo meelaa ka bilaawda aqoon laadahay waa ikanaa maanta ku wadaa saa ujeedid sameyso jadwalka nolosha waxyaalaha ku kooban waxa weeyaan jadwalka caruurta jadwalka guriga jadwalka cuntada iyo kii dhaqaalahaba videoga dhaqaalaha channelka kaleeta aydan kusoo dhejinaya soo raac oo halkaas ka daawo videoyadaas laakiinse saddexdan kala rabaan ka hadlano weliba jadwalka caruurta iyo jadwalka nadaafada video kaleeta waa kan cuntada insha Allah arki doontiin wuu soo socdaa laakiin videoganeeto nadaafada aan rabaa inaan ka hadlo jadwalka aad bilaabanaysid iyo caruurta labadaas waxay iskula socdaan waxa waaye because dad badan baa waxay haystaan caruur aan shaqo qabanin gurigii waxba ka qabanin marka waxaan labadaas isugu soo qabto waa waxaas caruurtaada runta haddaan ku sheego hadday yarin waqti haysataa ka faa'iidaysay ilmahaaga bar tarbiyadda nadaafadda guriga ruulka adigu gurigaaga ku dejisa okay because wuxuu kaa caawinaya waxa weeyaan wasaqda faraha badan ay meelaha dhigaan ay ka dhaqaaqaan caruurtaada hadday yihiin caruur oo da-aad maaragtay 13 wixii ka weyn waxa weeyaan madax adeegii waxay bilaabeen heblaaya sameynaysa maxaa iga gala aniga iyo maalinteeda ma ahan iyo xataa iyadoo maalinteeda tahay lagu ciyaarayo lagu leeyahay aniga ma shalan sameeyey daraadaan sameeyey because jadwal uma haysid ma fahmino because jadwal uma haysid adiga jadwal sameyso gurigaaga saa u nadiifinaya step by step sameyso marka ugu horeyso okay jikada maalinta ka shaqeyn lahayd musqulaha maalinta ka shaqeyn lahayd qolka maalinta ka shaqeyn lahayd bishii ama 6 bilood ama 3 bilood ama sanadka hal mar maalinta gurigaas shaqo fara badan ka qaban lahayd oo qashinka iska kala yareenayd xabishka takhluuska video badan jiro channelka kala saaran marka ka fikir waxaan kuu sheegay okay so caruurta waxay u soo raacdaa waxa weeyaan caruurta hadaan u sheegin video waa daawanaysiin because nadaafada guriga qolkii ilmaha waxaa sameynaya laundryga dhaqaaya waxaaseto hopefully inuu ku dhiirigeliyo fadhiga ka kacdi maanta tiraahdo wax inaa iska nadiifiyo waay yes that's the idea aan rabaa inaan kuu sheego because video waxaan rabaa inaan ku siiyo fikrado badan oo adiga aad jadwal ku bilaabanaysid ama aad jadwalkaaga isaga saxaysid oo hadda kaa qaldamay okay so jadwalka see u saxaysaa waaye ama jadwalkaaga see u samaysanaysaa gurigaaga kala qaybi maalmaha kala qaybso bilaha kala qaybso waxaas oo dhan okay step by step meel ka bilaabo meesha ka bilaabayso ugu horeyso waxa waaye hore caruurtaada inaad saxdid jadwalkooda because caruurtaada hadday dacdi ku xiran tahay kolba nin walba inuu shaqadiisa mas'uuliyadiisa inaad siisid oo gaar u ah haddii ay boring ka noqonayaan is leedahayna kalaba bedel for example jikada alaabta haddii aad mashiin haysanin ama haddaa mashiin haysatid xataa alaabta lagu dhaqo waxa waaye inaad haysatid habeenba inuu qof sameeyo ama maalinba inuu qof leeyahay maalintaas oo dhan ama habeenkii kaliya maalintii markii la casheeyo ama la cunteeyo ama adiga waqtiga istiraahadid muhiim u ah ilmahaas inay shaqada kaa qabtaan waa ila fahantaa umaleynaa shaqooyin kaleeto oo ka mid ah qolkooda alaabtooda tooyashooda iskuul alaabtooda waxaasoo dhan maaragtay iyaga responsibilitygooda saaran tahay adiga tan ku saaran oo aad rabti inaa caruurtaada ay kula qabtaan waxa waaye gurigii intiisa kale waxyaalaha iyaga nafsadooda qusayso waxa weeyaan waa wax u gaar ah laakiin tan adiga kugula jirto which is cuntada guriga ama hadday tahay nadaafada guriga intiisa kaleeto waxa weeyaan inaad ku xisaabisid ayaga shaqooyinkii qaban lahaayeen oo u gaar ah okay saan kugu soo sheegay haddii as leedahay boring ay ku noqonayaan dana isbuuc walba cunug baa qaadanayo shaqadii kaleeto haddaa is leedahay wuu is wareerinayaa dana ku ekeysii cunug walba shaqadaas u haystaa ilaa iyo bisha dhamaadkeeda which is quite some time waqti dheer waay moogta so waqtigaas dheerka ah ay iyaga la qabsanayaan haddana waxay u noqonaysaa natural habit qofka bini'aadamka markuu shaqada waxa uu qabto waxa arkaysaa easy u noqonaysaa because wuxuu baranayaa tekniikyo oo ma aragtay easy
oo u fududeynaysa shaqadiisa. Okay, caruurtana sidoo kale waay. caruurtaada hadduu yahay 4 jir wixii ka weyn shaqo way yeelan karaan. Okay, ka yar baaba ay wax kula qabanaya markaa tira waryaa saas samee ya way faanta malaynaa insha Allah. So hopefully inaad jadwal samaysatid waa caruurtaada u samaysid jadwal nadaafada iyo caruurta jadwalka nadaafadooda waa istaba socdaa. caruurta jadwalkooda oo noloshooda intooda kala ah waxa weeyaan totally waa ka duwan tahay. taas separate u sameey, taas ka duw kan ani waxaan ka hadlayo waxa waa nadaafada iyo caruurta labadaas jadwal ma aragtay oo nadaafadooda ah. because caruur waxa jiro dacaad markay gaaraan 13 sano wixii ka weyn runta hadaan kuu sheego wax ma maqlaan. waxay rabaan waxay ku malayaan inay ka caqli badan yihiin adiga. Okay, so waxay rabaan inay ku ciyaarsiiyaan gameka ah waa sameeyay waa yeelay maxaa kugu wato buuqaasi qayladaas shaqo gaar ah u gooy. markay dacaad sii dhaafaan 16 wixii ka weyna runtii waxa waaye responsibility-ga jikada xataa inay bilaabaan waa inay cunto samaystaan nafsadooda inay wax samaystaan markay samaystaan inay iska nadiifiyaan waxay taabteen oo dhan inay nadiifiyaan ee jikadiina kugu soo nadiifiyaan si kugu ahayd kugu celiyaan. jikadaada hadday wasaq ahayd ay galeen cunto samaystaan ku dhaha jikadii awal bay wasaq ahayd waxaa leedahay no markaa yeelay taas mafahmino markaa yeelay taas because jikadii iyadoo wasaqaa gashiyaas nadiifi waaba ku jirtaa hooy aniga waa sameeyaa hooy ahaan aniga waa sameeyaa markaan jikada galo cunto karinayo jikadana iska nadiifiyaa. so cunta karsanaysa waxbaa samaysanaysa samee waxa waaye ilmahanayta sometimes in oo si gaar ah loola dhaqmo waaye. but anyways waxaan rajaynayaa in maaragtay uu video aan inta ku siinayo fikrado hopefully inaad maaragtay adiga naftikaaga wax ka faa'iidido haddii aad jadwal already ugu dejisan yahay idea kale aan ku siiyo. Okay, so fadlan iga iloobi inaad thumbs up siiso videoga because wuu caawinayaa aan horaa idinku sheegaan please dhamaystira videoyada hadduu rabbi idmo youtube-ka shuruuc igu xiray soo shuruucda inaan buuxiyaa rabaa sida ugu dhaqsaha badan idinkana caawimaadiina idinka rabaa. Okay, videoga oo cuntadana soo socotaa videoga oo dhiirigelinta dhaqaalahana waa channelka uu saaran yahay wada isku filan insha Allah ayada wataan idin sheegay raac oo daawo videoyadaaseeto video badan ka buuxaan oo aan ka hadlayo dhaqaalaha insha Allah waa noo soo badin doonaa videoyadaaneta dhiirigelinta ah hadduu rabbi idmo. so idinka umboyaan saad channelka maaragtay kor ugu soo qaadaan. so jazakallahu khayra daawanayseen waxaan tusinay waxa waaye video daba soo socda insha Allah hadduu rabbi idmo. and back to school kan ku jirnaa weli dhiirigelinta schoolkan ku jirnaa so hopefully inuu ku caawiyo. okay khayr idin rajayna. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waa noo video daba bye. قلب ألحانا شذاها يفوح بالصدر ويصفو العلم راقراقا ويسقي دوحة العمر فيمحو الكون ظلمته وتشرق بسمة الفجر.